بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كاني افتينشة هي موضوع عن كهذا يوه إسكاش جدا تجود يأذيك بالشدة وحين وذا أجنهي وحن داهنا قصارنين وحين كودا دركسن هاي دمانتين إن تجود أي تهاي هدي سدا للرب الله وها القلا هالإرمان وقية شيلالتونا أنك قرينين إن أي تهاي صاحب هوموية كان عن كل هاي إن أي تهاي حلقي ilmahaaga oo adigu aad sii samaysatay hadaba diinta islaamka iyo gabiyageena Soomaaliyeed badanta guud way ka hadleen Nabi Maxamed Alayhi Salaatu Wassalaam waa kiilaha dadka waxa ugu anfac badan kooda dadka anfaca sidoo kale waa tilayna lahaa iyadoo oo danta guud iyo adeega bulshada laynagu dhiirigelinayo hadii aad wadada ku dudo saxar waxa aad yeelanaysaa ajar Ilaahay agtiisa waa kii gabiyageena weynaa waxa jaadan afqalo lahaa ومدان شباب كذا هنن وأيان حمين ميه بلجو حتيهين أرن كعية إذن كأمانة حلكله قابلة يسكا وحقب سنة لا شواء وضبحات كي إسراف كي يفرقوا وواحد وعده هدي اللي يسكتوا بناضو هدي اللي يسكاشدوا هدي أنت كلها قربحه تجاروا يقومنان دونتها ويقرح بدنان دونتها وانا ديفسن دونتها هدي جو واحد دونيسو كهلية ما يسلا قرسنهاي وحقيقة ارتمتهاي إن دنت جود ديعتر كيده ها أهات وضو ها أهات عافمات ها أهات بيو ها أهات وأديك دولارك هاقدان يرتاه إن أيتهاي قروح دينا الدنيا يجن دينا آخره وحيد يسلا قرسنهاي نوغنهاي إن بلشدين إنتو بدن أيكون مشغول سنتهاي قبيالا أيكون مشغول سنتهاي دنت كاركا لكن waxa inaga dadeen in si kasto oo dabaqyo dhaadheer aad u dhisato hadii adeega bulshadu uu ka kala daadsan yahay dabaqaaga iyo hantidaadu ay tahay ubax ku daafad ka baxay si kasto oo uu qurux badan yahay haddana waxa naf kasta oo u mahata ama meleelicda oo eegta hor istaaga waxa ku hareeraysan hareerihiisa balse hadii danta guud aad ka shaqayso oo tahay shakhsiyad ku dadaashay adeega bulshada iyo iskaashiga danta guudna u sare kacday waxa hubaala fiqiir baadahaatide inaad helayso adeeg aataha qablaana ugu hagar baxdo ka soo qaato saale hadii isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa uu yahay mid adeegiisa caafimaad u dhameystiran yahay saacad kasta oo aad ku noqoto ilaa wax bulshadu wada leedahay lagu oran maayo maxaad u soo noqnoqotay laakiin in adeerka walaalka iyo aabaha hadii ay leeyihiin isbitaal gaar ah oo aad galiso wax kasta ka gaarka ah markasta oo aad tagto waxa lagu weydiinayaa kaad adigu gashay doctorka jooga dawadana waxaad ku goosanaysaa lacag taas waxay cadeyn u tahay in danta guud ay tahay hashaayirmaan ee go iyo jiilaaltoona aan gureynin hadii siday tahay loogu hagar baxo qofka muslimka Nabi Maxamed wa kilaha Alayhi Salaatu Wassalaam waa ka aan dhergin isaga oo qofka jaanibkiisa ama jaarkiisa ah ku dhawi gaajaysan yahay hadii danta guud madaxda dalkeena umarada in hagaysa iyo inteena indheer garadka hayno hagar baxno waxa hubaala inaynu gaari doono horumar iyo baraare in badan lagu naaloodo danta guud waa furaha horumarkaaga waa abuurida dhaxalka ilmahaaga cunida danta guud iyo tacaadiga dadka tabaalaysan inta ku sifowday hadda uma socoto fariintaydu ee waxay u socotaa qof kasta oo damiir fayow iyo dareen la taaban kara leh ummadaha caalamku waxay ku kala horumareen danta guud sida iskugu kaashadaan waati hore loo yiri ha isweydiin dalkaaga wuxuu ku qaban kara adigu isweydiin dalkaaga waxaad u qaban karto dhalinyaro anigu idin kamid ahay idinkuna aniga iga mid tihiin hadii aynaan dadaalin hadii aynaan gacmaha isqabsanin hadii aynaan u tafaxaydin danta guud iyo daryeelka danyarteena iyo bulshadeena tabaalaysan waxaan ogahay ilmahaaga ilmahayga iyo ilmaheena toona helimayo dhaxal waara oo uu ku intifaacsado innagana inagu xasuusto qolo fiirsi qabiyada wadankeena taal masjidkii qiblateynka ee Turkiga dhisay balbara marka ay tagtay inta masjid iyo dhisme qadiimi ku taala hadii awowga ilmaha Turkiga awowgi inta ku dhisay adiga awowgaana uu ku hawlana sida nabad iyo wanaag ugu sameyn lahaa adigu maxaad ku hawlan tahay inaad wadankaaga u qabato maxaad doonaysaa inaad xal muuqda kaga tagtaa doonta ranahantii marka dangu laga hadlaayo iyo bulshada adeegideeda waxaynu xasuusanaynaa Nabi Maxamed Alayhi Salaatu Wassalaam iyo khulafaa ar-raashidiintii khayrka badnaa ee ku sifoobay in ay danta guud iyo adeegida bulshada
in badan ka horreysiyeen tooda gaarka ah waa kii Umar bin Khattab markii uu ahaa khaliifkii muslimiinta habeen kormeer isagoo ku socda maqlay gabadhii lahayd aniga iyo Umar Ilaahay baa noo kala xaqaadi doona وكي تجي بيت مالك المسلمين تا مركز أصحابي كهريريس ندي لهذين أنا كو قادنا خليف كي رسولك أو أذيك أنا ذوق نسق ورد واكلها ودم بيجيجا مية قاضي السلام علينا قيامة إنك ما ذحدينا وح أي كتنادي وح أي كهر مرين وح أي فوقية وين رنتي كرستين وح أي مدح رقميات كانوا مركز عروضان بلقوا مسلحة والله سيا وح جناح ستدين إيجي نجميرتي ودنتي جود oo iyagu gaarayso leekaysiye waan ka xumahay in dhaxalkeena bilalaqa ku jiro inaguna aynu moognahay isbedel inaynu sameeynaana aanay ahaynba wax runtii aynu u bisirnahay waxaan ku faraxsanahay markaan arka adiga iyo aniga oo u taagan danta guud waxaan ku faraxsanahay baraaruga waafiga ah ee barnaamijkan iftiinsha wado waxaan ku faraxsanahay dhawaaqan dhalinyarada ee meel fog gaari doona waxaan rajaynayaa danteena inaynu ka horumarino danta guud si aynu u helno wadan loo soo hiloobo iyo dhaxal waara oo ilmaha dhabarkaaga ku jira oo aayo danta guud waa hal irmanoogu iyo jiiraaltoona aan ka gureynin haddii aad ugu hagar baxdo sida ay iyadu tahay intaas ayaan kaga baxayaa Ramadaan Kariim wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh